Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabta. Magacaygu waa Maxamed Nabiil. Kuna soo dhawaada channelka maanta baas ee ugu barateen muuqaalada cajiibka ah la yaabkana leh ee ku faafay internetka. Intaan ugu gudagelin haddii aad ku cusub tahay channelka maanta baas, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Aynu bilowno muuqaalka midka ugu horeeya. Shakhsigan faylka ayuu ku jiri waayay kadib noloshiisa iyo nolosha dadka kale ayuu halis geliyay. Tukahan aad ayuu u dhib badan yahay. shakhsigan qoriga ayuu xabada ku tuuraa sida ayuu ninkana ku ridayaa. Waa cajiib. wiilkan noloshiisa halis ayuu geliyay. gabadhan saaxiibadeedu way qiyaantay, laakiin kadib maxaa ku dhacay? Fiiri xayawaankan sida uu ninka u galay. Falcelinta shimbirkan waa mid cajiib ah. Fiiri markii ninkan uu ka jabiyay gurigeeda. We got it. Throw it exactly where it belongs, right, Pebble? Right in the garbage. Goolkan ma uusan qornayn in la dhaliyo. libaaxan kama uusan helin mid ka mid ah shaqaalaha, laakiin waxaa la yaab leh midka kale waxa uu isku dayayaa inuu libaaxa celiyo. labadaa nin dhab miyay ka tahay mise waa is og yihiin? muuqaalkan waxa uu tusinayaa sida rootigu u bislaanayo. ninkan xirfad wanaagsan ayuu u leeyahay jarjaridda basasha. ninkan gacantiisa ayuu ku dabanaa malaay. wiilkana wax aan ku tilmaamo ma garanayo, bal ila daawo.
waxaan u malaynayaa duuliyahan inuu ku qasbanaaday inuu diyaaradda ku dejiyo waddada. geedkan waxaa sidaan u jarjaray waxaan u malaynayaa inay tahay biriq. xayawaankaana kama uusan helin gaariga. ninkan waxa uu iska dhigay mid biyaha ku qarqoomay si uu u ogaado eegiisa inuu badbaadinayo. shaqaalaha maqaayadan Chinese-ka ah waxay xirtaan kabo taayaro leh markay dadku u adeegayaan. Fiiri xayawaankan siduu ugu dhagan yahay wiilka kadib markii uu ka soo badbaadiyay meel halis ah. Fiiri farqiga u dhaxeeya macalinkaan samurayga iyo ardaydiisa. wiilashana si boobsiis ah ay ugu bedelayaan gaari gacanka taayarka. diyaaraddan waxaa loo adeegsanayaa dabdamis. ninka miyaaradaha nadiifiya waxa uu jeclaystay inuu la ciyaaro bisada. ninkan albitraha meel aan loo jeedin ayuuba ka soo baxay. wiilkan waxa uu baranka ku sameeyay dadkii la saarnaa tareenka isagoo iska dhigaya inuu cunug yar dhabta ku hayo si ay boos ugu baneeyaan. wiilkaana isagoo gacmaha ku wareegsanaya ayuu fanaanad iska siibaa. fiiri kalarka uu marinayo gitaarka ninkan.
xayawaanadan waxa ayba ku dhaqmayaan sharciga iyagoo maraya meeshii loogu talagalay in laga gooyo wadada. maanta waa naga intaa. waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen muuqaalkan. hana hilmaamin inaad la gareyso subscribe-na dhahdo channelka maanta balaas si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. muuqaalkii u dambeeyay 10kii qof ee ugu horeeyeen waa kuwaan.